بسم الله الرحمن الرحيم دور wanaagsan dhageystayaal qodobada wararka duurnimada shabeellada aysa waxa kamida faahfaahin laga helayo dagaal u dhaxeeya laba maleeshiyaad beeleed oo ka dhacay deegaanada hoostiga gobolka Galgaduud madaxweynaha maamulka Hirshabelle oo baaq nabadeed ka soo saaray dagaal beeleedyo ka dhacay deegaanada ka tirsan gobolka Hiiraan madaxweynaha koonfur galbeed ee Soomaaliya oo si rasmi ah u la wareegay xilkiisa kadib markii maanta lagu wareejiyay xafiisyada uu ku shaqeyn lahaa magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee koonfur galbeed howlgal ka dhana al-shabaab iyo daacish oo ka soconaya deegaanada hoostiga gobolka bari iyo faahfaahin ka soo baxaysa dagaal ciidanka Puntland iyo kooxda daacish ku dhaxmaray deegaan u dhow degmada Qandale ee gobolka bari muwaadin Soomaaliyeed oo laga sii daayay xabsi ku yaala jasiiradda Malta baarlamaanka Itoobiya oo meel mariyay guddiga dhaxaadin u sameynaya qowmiyadaha Soomaalida iyo oramada maamulka degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan oo mar kale ku baaqay joojinta dagaal beeleedyo u dhaxeeya laba beel oo walaalaha oo wada degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada dowladda Soomaaliya oo sheegay in gaadiidka duubay laga xanidi doono in ay ku socdaalaan magaalada caasimadda ee Muqdisho wararka dibadda ee duurnimada Shabeellada aysa waxa kamid ah ku dhawaad 5 arday oo ku geeriyootay qarax ka dhacay shaybaar jaamacadeed oo ku yaala dalka Shiinaha iyo ciidanka dawladda Suudaan oo rasaas nool u adeegsaday dibadbaxayaal ku qulqulayay dhinaca madaxtooyada dalkaasi waa duhurnimo Arbaca taariikhdu ay ku aadan tahay 26 December sanadka 2018 warkaasi oo dhan duhurnimada waxaynu haysaan Isaanfa Cabdullaahi Maxamed aad baad mahadsan tahay Nuuraddiin Xasan Ibraahim Shardi bismillaahir rahmaanir rahiim duhur wanaagsan dhageystayaal warkiyo fidsan dagaal u dhaxeeya laba maleeshiya beeleed ayaa ka qarxay deegaanada hoostiga gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya Cali Xasan Barqalle Cali Gaab ayaa warkan galkacyo ka soo diray faahfaahin kala duwan ayaa ka soo baxaya dagaal aroornimadii horeete ee saaka ka qarxay deegaanka ka Xandhaale oo dhaca xadka ay wadaagaan gobolka Galgaduud iyo maamulka Soomaalida Itoobiya dagaalka u dhaxeeyay maleeshiyaad dadka deegaanka waxa ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho dhaawac dagaalka oo soconaya muddo aan ka yarayn 6 saac ayaa la sheegay in la isku adeegsado hubka noocyadiisa kala duwan ilaa iyo haatan waxa la xaqiijiyay inay ku geeriyoodeen ilaa iyo 5 ruux tiraintaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen mas'uuliyiin ka tirsan dawlad goboleedka Galmudug oo xiriir kala duwan la sameeyay waxay sheegeen in dagaalku u dhaxeeya laba maleeshiyaad oo deegaanka isla markaasna ay wadaan dadaalo kala duwan Maxamuud Cilmi Gulaafi waa sargaal sare oo ka tirsan ciidamada booliiska dawlad goboleedka Galmudug waxay ga yiri dagaalka saaka ka dhacay deegaanka ka Xandhaale ee gobolka Galgaduud iyo waxyaabaha ay kala socdaan ayaa beelaha deegaanku saakay qoladan Galmudug lagu soo weeraray siday noo sheegeen shacabkaas ayaa wax kala gaareen kulli dhimasho dhaawac weeyeen marka kulli dhaawacaas wax soo gaareen dhaawacyada ka dhashay dagaalka ka dhacay deegaanka ka Xandhaale ee gobolka Galgaduud ayaa ilaa iyo haatan waxa la kala gaarsiiyay magaalooyinka Bandiirale iyo sidoo kale Dhadhabado labaduba ka wada tirsan gobolka Galgaduud ee dawlad goboleedka Galmudug mas'uuliyiin ka tirsan dawlad goboleedka Galmudug ayaa durbadeeba ku baaqay si degdeg loo joojiyo xiisada colaadeed ee iminka ka aloosan deegaanka ka Xandhaale oo dhaxadka ay wadaagaan gobolka Galgaduud iyo sidoo kale maamulka Soomaalida Itoobiya Cali Xasan Barqalle Cali Gaab warbaahinta Shabeelle Galmudug madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa maanta si rasmi ah la wareegay xilkiisa wariyaha Shabeelle magaalada Baydhabo Maslax Raage ayaa goor dhaweyd khadka telefoonka ugu waramay Nuuraddiin Shardi waad maasan tahay Nuuraddiin Shardi abaare 5 iyo qadar 4 daqiiqo markay ahayd magaalada Baydhabo waxa ka qabsoomay il wareejin taa oo ay gabiyaanba hilka wareejiyay si haynimada ee madaxweynaha koonfur galbeed ee Soomaaliya Cabdiqaadir Shariif Sheekuna May oo horaantii bishii November la soo dhaafay magaalada Baydhabo hilkaasna si banaayay madaxweynihii koonfur galbeed ee Soomaaliya 4 sano la soo dhaafay Shariif Xasan Sheekh Aadan waxaana maanta si rasmi ah u bilaabay sanad il wareejintiisa oo khamiistii magaalada Baydhabo
ka dhacday doorashadii koonfur galbeed ee Soomaaliya 19 December lagu balansanaa taa ku dhawaad ay ku tartamayeen musharaxiin gaaraya 5 murashax sidoo kale waxaa maanta iyagana si rasmi ah loo wareegeen xukuumadda cusub ee Cabdiis Laftigreen uu hogaamiyo ee maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya 4 sano ee soo socota waxaana lagu balansan yahay in 16 bishan soo socota ka dhigi doonta magaalada Beledweyne caleemasaarkii madaxweynaha cusub ee koonfur galbeed Cabdiis Laftigreen waxaana dhammaan ka soo qaybgalay kulanka maanta ee wareejinta ahaa qaar ka mid ah golaha wasiiradii iyo maamulka koonfur galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan agaasimayaasha wasaaradaha ee koonfur galbeed iyo dhammaan guddiga doorashooyinka koonfur galbeed iyo xubno ka soo baarlamaanka koonfur galbeed iyo xildhibaano ka tirsan dawladda dhexe ee Soomaaliya aad buu mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa wariyaha Shabeelle magaalada Baydhabo Maslax Raage oo ka warbixinayay madaxweynaha cusub ee maamulka koonfur galbeed oo maanta si rasmi ah ula wareegay xilkiisa madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ayaa baaq nabadeed ka soo saaray dagaal beeleedyo ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan Nuuraddiin Xasan Ibraahim Shardi ayaa warkan eegaya madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo ka hadlay colaado ka dhacay deegaano hoostaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ayaa ku tilmaamay dagaal beeleedyada ka soo cusboonaaday deegaano hoostaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan iyo yihiin kuwo lagu taageerayo al-shabaab madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ayaa ugu baaqay waxgaradka beelaha inay joojiyaan colaadaasi isagoo carabku ku adkeeyay in aan loo baahnayn xilligan dhiig si mixna darro ah loo daadiyo iyadoona uu ka tacsiyeeyay dadkii ku dhintay colaadaasi kuwa ku dhaawacmayna u rajeeyay caafimaad qab madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa waxa uu sheegay in diyaar ay u tahay Hirshabeelle in gacan ay ka geysato wax waliba oo sababi kara in dagaaladaasi lagu joojiyo isagoona ugu digay beelaha Hirshabeelle in aysan taageerin al-shabaab oo uu ku tilmaamay inay yihiin koox ka soo horjeeda deegaanada maamulka Hirshabeelle madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ayaa waxa uu sheegay in colaada ay tahay mid qabiil balse aysan ahayn mid siyaasadeed isagoona sheegay in loo baahan yahay in beelaha Hirshabeelle ay ka taliyaan nabadda deegaanada Hirshabeelle waxaana ugu baaqay in odayaasha iyo sidoo kale siyaasiyiinta maamulka Hirshabeelle ka soo jeeda in ay isku taagaan joojinta colaadaasi sida lagu qoray war-saxaafadeed ka soo baxay madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ayaa ku baaqay in xabadda la joojiyo wixii dhinacyada ay isku qabaana si nabad ah lagu dhameeyo maadaama buu yiri xilligan ay loo baahan yahay in si degdeg ah loo joojiyo colaada ka soo cusboonaatay deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan gaar ahaan deegaano hoostaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan waxaana sheegay in ay yihiin beelaha dagaalamaya kuwo walaalo ah oo wada deegaano hoostaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan isagoona sheegay in dagaalkaasi aan loo baahnayn xilligan waxaana madaxweynaha Hirshabeelle ugu dambeyntii uu ku baaqay in si degdeg ah colaadaasi loo joojiyo dhawaan deegaano hoostaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan waxaa ka dhacay dagaal beeleedyo iyadoo hadda xubno ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan iyo sidoo kale kan Hirshabeelle ay sheegeen inay ku baxayaan colaadaasi dhinaca kale maamulka degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ayaa mar kale ku baaqay joojinta dagaal beeleedyo u dhaxeeya beelo walaalo ah oo wada dega degmadaasi Ismaaciil Axmed Maxamed Turki ayaa warkan faahfaahinaya shalay ilaa iyo maanta waxaa la soo warinayaa in dhaqdhaqaaq xooggan ay sameynayaan maleeshiyaadka is hor fadhiya mararka qaarna ay isweydaarsanayaan xabado goosgoos ah degmada waxaa ku sugan mas-uuliyiin fara badan oo ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan oo uu horkacayo Yuusuf Axmed Hagar Dabageed iyo xildhibaano ka tirsan maamulka Hirshabeelle kuwa oo u tagay degmada Maxaas in colaadaasi la soo afjaro balse weli xal looma helin iyaga oo jooga ayay mararka qaar xabadda ka dhacaysaa aagga la isku hayo oo degmada u dhow maleeshiyaadka xiisadda wada ayaa waxay isku hayaan dhul daaqsimeed aad u ballaaran maamulka degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ayaa mar kale waxa ay ku celiyeen isla markaasina ay ugu baaqayaan maleeshiyaadka qaska iyo foodada wada in ay nabadda ka shaqeeyaan oo xabaddu ay joojiyaan sida uu sheegay gudoomiye ku-xigeenka koowaad amniga iyo siyaasadda degmada Maxaas Qaasim Maxamed Maalin si kastaba ahaatee xaaladda deegaanada ku dhow degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan caga badan kuma taagna xasiloonidooda dagaalka u dhaxeeya labada maleeshiyaadna inta uu socdo waxaa naftooda ku waayay 15 qof 40 kalena waa ay ku dhaawacmeen kuwa oo isugu jira dhinacyadii dagaalamay iyo dad rayid ah oo aan waxba galabsan
gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay in gaadiidka duugoobay laga xanibi doono in ay maraan wadooyinka waaweyn ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho sida warkan oo ku faahfaahinaya wariyeena Mahad Maxamed Cabdiraxmaan Mutawakkil maxamed cabdullaahi salaad Omar wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay in si gaar ah loo baari doono tayada gaadiidka mara wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho kuwaas oo qaarkood ah kuwa duugoobay mararka qaarna dhibaatooyin ay kala kulmaan shacabka Soomaaliyeed ee mara wadooyinka waxa uu sheegay in la hubin doono tayada kadibna la siin doono ogolaanshaha wadamarista gaadiidka wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho sida aad la socotiin baabuurta joogta gawaarida joogta wadanka dhamaantood waxay maraan sano kasta waxa la siiyaa document cadeynaya in ay MOT-ga mareen ama tijaabada badqabka in ay maraan ayaa weligeed la siin jiray maanta waxaan bilaabaynaa in shaqadaasi sidii loogu talagalay loo qabto baabuurta sida la socotiin sanadihii hore dhamaantood waxaa la siin jiray waraaqahaas iyaga oo aanan garaash intii la geeyay aanan la tijaabinin maanta wixii ka bilowdo si gaariga uu jidka u maro sida wadamada adduunka oo kale wuxuu mari doonaa tijaabo haddii gaariga uu ku guulaysto tijaabadaas wuxuu heli doonaa shahaadadaas ayuu wuxuu la iman doonaa wasaaradda qaybteeda baraa qaybtaas ayaa hadduu ilaahay ka raali noqdo certificate-ka siin doonto runtii waxaan ka gudbaynaa stage badan waxaan u gudbaynaa dawladnimo maanta haddii baabuurka marka uu wax ka khaldan yahay uusan jidka mari karin oo lagu joojinayo isaga oo soo tijaabiyeen garaasho ay yiraahdeen baabuurkani ama gawaaridani waxay dib ku yihiin amniga iyo maalka ummadda Soomaaliyeed jidku ma mari karo waa horumar bay la tahay aniga haddii Ilaahay ka raali noqdo wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho mararka qaar waxaa lagu arkaa gaadiid duugoobay kuwaas oo wada shixnada ganacsi oo kala duwan xilliyada qaarna ku rogmado wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho baarlamaanka Itoobiya ayaa meel mariyay guddi dhexdhexaadin u sameyn doona qoomiyadaha Soomaalida iyo Oromada oo inta badan isku dhacyo ay dhexmaraan warkan waxaa eegaya wariyeena Xasan Kaafi Xuseen Axmed baarlamaanka dalka Itoobiya ayaa meel mariyay guddi dib u heshiisiin kuwaasi oo ka shaqeyn doona xal u helidda khilaafka qoomiyadaha ee haatan ka dhex aloosan qoomiyadaha dalkaasi Itoobiya sida ay baahisay wakaaladda ku hadasha afka dawladda ee Fana ra'iisul wasaaraha xukuumadda Addis Ababa Abiy Ahmed ayaa ammaan caalami ah ku helay nidaamka isbeddelka ah oo ka hirgeliyay dalkaasi Itoobiya tan iyo markii uu xilka dalkaasi qabtay bishii Abriil ee sanadkani balse xukuumaddiisa waxaa saameeyay isku dhacyada qoomiyadaha dalkaasi oo ay ka mid yihiin qoomiyadaha Oromada iyo sidoo kale Soomaalida iyo qoomiyadaha kale ee dalkaasi dhaca geeska Afrika ujeedka guddigani loo dhisay ayaa lagu sheegay inay ka shaqeeyaan nabadda cadaaladda midnimada iyo sidoo kale dib u heshiisiinta dhammaan dadka Itoobiya sida warkani lagu xusay sidoo kale guddigani ayaa la sheegay in shaqadeedu ay qayb ka tahay inay soo ogaadaan waxyaabaha dhaliya khilaafyada soo noqnoqday oo ay ka dhashaan xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqul insaanka Tastifaye Dabe oo ah madaxweynaha guddiga baarlamaanka ee nabadda iyo arrimaha dibadda ee dalkaasi Itoobiya ayaa u sheegay warbaahinta Fana in shaqadoodu ay sidoo kale qayb ka tahay inay soo baaraan xadgudubyada dhaca isla markaana ay baarlamaanka dalkaasi ku soo celiyaan warbixin ku aadan xal u helidda arrintani qaramada midoobay ayaa sheegtay in 2.4 milyan oo qof ay uga barakaceen dalkaasi Itoobiya qalalaasooyinka la xiriira isku dhacyada qoomiyadaha dalkaasi faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal ciidamada maamulka Puntland iyo ururka Daesh ku dhex maray meel u dhow degmada Qandala ee gobolka Bari
wariyeena maxamuud cabdinaasir soofaysan ayaa arrintaasi la socda isha ku hayay iminkana dhinacayga fadhiya. maxamuud, maxaa khasaare ah oo ka dhashay dagaalkaasi? anise waa mahadsan tahay. dagaal u dhexeeya ciidamada maamulka puntland iyo daacish ayaa waxa uu ka dhacay xalay deegaano iyo tuulooyin hoos tagaa degmada qadiimiga ah ee qandala, waxaana wararku ay sheegayaan dagaalku inuu qarxay kadib markii ciidamada maamulka puntland ay dagaal amaba weerar ku qaadeen fariisin ay ku sugnaayeen kooxda daacish oo inta badan halkaasi fariisimo ku leh dagaal. waxaana lasoo sheegayaa in hadda saaka ilaa hadda ay socdaan howlgallo xoogan oo maaragtay ciidamada maamulka puntland ay ka sameynayaan deegaanadii xalay lagu diriray. saraakiil dhinaca amniga ah oo aan la xiriiray waxay ii sheegeen in aysan hadda wax faahfaahina ka bixin karin dagaalkii xalay dhacay ee khasaarada ka dhalatay iyo sidoo kale howlgalka ay hadda ka wadaan deegaanadaasi, balse ay soo bandhigi doonaan saacadaha soo socda wixii xalay dhacay iyo sidoo kale howlgalka ay sameeyeen, natiijada iyo markaasi gulaha haddii ay jiraan ay ka gaareen. aad baad umahadsan tahay soofaysane. dhegaystayaal wixii waray arrintaasi ka soo baxda howlgallada ay wadaan ciidamada puntland wararkeena dambe ayaad kula socon doontaan insha allah. muwaadin soomaaliyeed ayaa laga sii daayay xabsi ku yaala jasiiradda maalta, sida warkan uu ku eegayo waryaheena jaamac maxamed saalax. maxkamad ku taalla jasiiradda maalta ayaa sii deysay muwaadin soomaaliyeed oo ku eedaysnaa inuu dhaawac u geystay shakhsi kale. xeer ilaaliye baner charles ayaa sheegay in ninkani soomaaliyeed oo da'diisu lagu sheegay 30 sano jir lagu waayey dembiga ah in uu dhaawac u geystay shakhsi kale, isla markaana ay maxkamadda amartay in la sii daayo. booliska maalta ayaa sidoo kale eedaynta dembigaasi u jeediyey nin kale oo ka soo jeeda dalka afrika, kaas oo la sheegay inuu yahay eedaysanaha dembiga lagu waayey muwaadinkaasi soomaaliyeed oo aan magaciisa la shaacin. jasiiradda maalta ayaa waxaa ku nool qaxooti soomaali kuwaas oo inta badan tahriib ku gaara maalta kadib safaro halis ah oo ay u maraan badda militariyanka ee isku xidha dalka liibiya iyo maalta. halkaad warkaasi kala socotaan waa shabakadda warbaahinta ee Shabeelle. ugu yaraan 3 arday ah ayaa geeriyootay kadib markii qarax uu ka dhashay shaybaar jaamacad ku taala dalka Shiinaha oo arday wax ku barata kuliyadda dhismaha deegaanka ay ku soo bandhigayeen cilmi baaris ku aadan daaweynta biyaha wasakhaysan, sida ay sheegtay waaxda dabdamiska ee xukuumadda Beijing. shilka ayaa sababay dhimashada 3daasi arday. muuqaal la soo duubay oo ay warbaahintu Shiinaha heshay ayaa muujinayay qiic fara badan oo ka soo baxayay dhismaha jaamacadda. ilaa iyo 30 ka mid ah gawaarida dabdamiska ayaa loo diray goobta, sida ay sheegeen dowladda Shiinaha. mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ayaa sheegay in ay bilaabeen baaritaano ku aadan in ay ku ogaadaan waxa sababay qaraxa ka dhacay shaybaarka jaamacadda Beijing. warkii waad kala socoteen idaacadda Shabeelle ee magaalada Muqdisho. khiyaartana dhageysanaysa xilligan weynaga intaa wada warkana uu sheego waxay dib uga daalacan kartaa barta internetka aan ku leenahay radioshabelle.com. يا سلام يا سلام يا سلام. سوق عصب oo la idin furay oo lagu magacaabo iibka.com